أنا كجهل لنا نك عابد واقل قدلي عابد واقل قدلي أنا كجهل لنا وحنولا إنه غير عابد واقو بليسكو مامولكو لما أنت نك عن كل عدة شيء هلا هلا مرحوم كعدة شيء هلا هلا وعيبنا إنك تجمعين واحد إنك تجمعين ninka marka wixii cadeen la soo cadeeyo bileysku cadeeyo cidii loo raacayo waa waji hadii se la yiraahdo suuqa lagu dilo cid looma hayo taliyaha bileysku baan ugu raacayna hadii Ilaahay ka dhigo waxaan horta ka tacsiyadeynaynaa ninka dhintay ee gacanta bani aadam ku dhintay waanu u tacsiyadaynaa raasku ka dhashay iyo habar yoris dhamaanteed ba u tacsiyadanayo wax islaamo waanu ka fognahay meesha warkuse wuxuu nagu soo gaarayaa sidii ku habboonayd inaanay ka yeelin reer caabud waaqow ragba waa ku raggeeda maanta idinkaa meeshii jooga meesha dhibtu ka dhacday idinkaa jooga maamul iyo bilays iyo waxgarad intaba waa ku joogtaan annagu waxaanu dhageysanaynaa dhawaaqa idinka soo yeedhaanu dhageysanaynaa kolay xagga waqooyina waa laydinka imanayaa dhibi way dhacdaa laakiin dhibta waa la hagaajiyaa waxaan idinku boorinayaa hagaajiya dhibta ka dhacday meesha la yidhaahdo caabud waaq dhexdeeda kayse ismaaciil quule oo lagu dilay magaalada caabud waaq 14kii bisha laguna aasay shalay oo ay ahayd 15kii bisha waxaan halkan laga soo jeedinaynaa baaq maamul goboleedka galmudug gobolka galgaduud gaar ahaan degmada caabud waaq ninka laguma dilin ay meel cidla laguma dilin jid looma gelin magaalada caabud waaq bartankeeda lagu dilay tashi baa lagu dilay waxaana noo cadaatay markan hay'adaha amnigu ay qori waayeen muujintii bileysku ay xaq u lahaayeen marxuumka dhibanaha ee la dilay inay cadeyn qoraan inuu dilay hebel oo reebeli taa ay diideen ee maamulkii degmada oo gudoomiyihii iyo maamulkoodii kale ay diideen inay ninka qoraan 34 saacadood markuu yaalay meydkiisu in odayaashii ka yimi burco ay qasab ku noqotay ninka in la aaso waxa nasiib daraa oo aan maanta halkan uga sheegaynaa annagoo muqdisho joognan lagu kalifay arrinka caabud waaq yaala oo ay burca nooga dhowdahay tala xumada iyo arrin xumada ree caabud waaq ay sameeyeen hadday heer maamul yihiin iyo hadday odayaasha iyo waxgaradka beesha caabud waaq bay yihiinba dhammaantood lagu wada socdo qof islaam oo xaq darro lagu diiyay in la duudsiyo waa wax laga yaabiyay habariyosna waxaan u sheegayaa ninka Ali Saciid ee lagu dilay 14kii bisha magaalada caabud waaq waa ninkii saddexaad ee aan gar iyo garotoona laga marin haddana naylooma hayo waxaan leeyahay oo aan ku soo gabagabeynayaa waa nasiib darro dil xumo qof uu geystaa laakiin qabiildan iyo maamul iyo hay'ado amni qof islaam iskuma raacaan inay duudsiyaan anigu ninkaygana waxaan la hadlay taliyaha bilayska galmudug taliyaha nabad sugidda galmudug macallin mahdi gudoomiyaha degmada caabud waaq taliyaha bilaysku hadal aan ku qancay wuxuu ninka caabud waaq lagu dilay la garan maayo waa taliyaha bilayska maamulka galmudug gudoomiyihii degmadu caabud waaq wuxuu ugu yiri ninka faahfaahin cad kama bixin karo ninkale magaalada lagu dilay niman mareexaana oo reed diiniya oo reed siyaas xishaana baa dilay waxba inooma kala qarsoomi karaan leeyahay waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha amniga bilayska iyo maamulka degmada caabud waaq war ninka dhintay cadeyntiisii ayaanu idinka doonaynaa oo kaliya annaga la xisaabtamayna ka xaajaysigeeda cidda dishaan baanu ka heshiin abaanu heshiin weyno waa wax naga dhex yaala gacan ku dhiiglayaashii hadday idinku adagtay xitaa ayna qabataan annagu wuxuu baan cadoonaynaa warqad bilays hebel
hebel iyo intaasaad soo reebela ayuubaanu idinka baahanay annagu idinma lihin noo soo qabta ayuma odhanba maynaba sababtu ay tahay dee mayd muujintii bay qori weydeen isagoodhiya waxaan leeyahay oon ku soo gabagabeynayaa waxaa nasiib darro ah ninka magaalo bartankeed lagu dilay ee maanta aaminsan 4 caana maal meydka ahaa ee aan gar iyo garooshiyo toona habar yoonisay meelooga hayn ee raggii tagay maanta aan wax cadayna la siin ee aan tale iyo arrin wanaagsan toona maanta caawud waa qoolin ayaa idinku sheegay maanta habar yoonisay meel kasta ka ogaato raxmaan raxiim halka waxaynu isugu nimi inaynu ka hadallo ninka marxuunka lagu dilay caabud waaq oo magaciisa la yiraahdo Kayse Ismaaciil oo lagu dilay magaalada caabud waaq ninka waxa la dilay bishay 14 bisha ninka marka hore waxaanu leenahay xukuumadda iyo maamulka ka jira caabud waaq hadduu yahay mid deegaan iyo hadduu yahay mid federaalaba ninkaas waajibaadkii uu maamulku ka lahaa inay maraan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay maamulkii oo bilaysku u horeeyo inay ninkaas gacan ku dhiiglayaashii dilay inay soo qabtaan sidii ay ahaan jirtay warka waxaanu ku haynaa in ninka arrinkiisa markii hore aan tallaabadii sax ahayd aan la qaadin waxa aanu ku boorinaynaa maamulka iyo deegaankaba inay arrintaas fidmadaa ciddii dhigtay ee gacan ku dhiiglayaashii inay soo qabtaan waxa weeye beeluhu meel walba way isdhex joogaan meel walba way joogaan fidmadu meeshay ka dhacdo waxgaradkeedii hadday tahay shacab iyo hadday xukuumad tahayba waxa la doonayaa inay waajibkoodii qaataan oo ay gacan ku dhiiglayaashii si aanay fidmo kale u dhicin in la soo qabto weeye waxa aan mar labaad ku celinayaa ragga caabud waaq dega iyo habar yoonis way is yaqaaniin wanaag iyo sharaf baa u dhaxaysa dhibaataduna way dhacdaa sida ay ka yeelaan gacan ku dhiiglayaashaas iyo marxuunka xuquuqdiisii sida ay ka yeelaan ayaanu anagu eegaynaa ragna way isugu imanayaa haddii alla ka dhigo sida ay ula xaajoodaan ee ay arrintaa ka yeelaan waa mid isqoraysa oo diiwaanka gelaysa intaasaan ku soo koobayaa waxa aan mar labaad ku celinayaa taliyaha ciidanka bilayska ee joogal meesha la yiraahdo caabud waaq inuu waajibkiisii qabsado oo uu gacan ku dhiiglayaashii loogu yimaado ayaan u soo jeedinayaa